soo dhawaado way soo dhawaado way soo dhawaado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaado Soomaaliyay meel kasta aad joogtaan. Duhurko aadin wacnaado maalin wanaagsan. Halkan waa xarunta gobolka Hiiraan Beledweyne. xaaladda waa caadi, waa degan tahay, wax dhibaato ah ma jiraan. Jawiga waa okay. barnaamijka doorashooyinka ayaa aad u xiiso badan. madaxda way soo wactamayaan, dadku campaign ay ku jiraan, waa la diyaar garaysan yahay. qof kasta oo muwaadin ah wuxuu jecel yahay inuu ka qayb qaato sidoo ugu qayb gali lahaa barnaamijka doorashooyinka dalka. marka howlaha maasha Allah aad ay u wacan yihiin. soo dhawaada. waxaan rabaa kelmadeen yar inaan halkan ka soo jeediyo oo aan badnayn. anigu maxay tamin rabo, waxa ma sheegi rabo. waa Cabdullaahi yar oo taqaanaan, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ay warqadda ka dhiman tahay aan ahay. waa idin soo dhaweynayaa shacab weynaha Soomaaliyeed meel kasta joogtaan. waxaan arkay shalay baa xoogaa yar meelahan ka dhaceen oo taag ah oo hadda wax la boonboonay iyo wax maaragtay meelaha lala maraba aan ahayn. mas-uul hore iyo mas-uul hadda xilka haya ayaa xoogaa isku yara dhacay, sabab kastaba ha iskugu dhaceen. marka sidaa laaligeed waxna hadda markaas dhibaato ah kama dhicino, iska laba nin oo isdhirbaaxday iyo waxyaaba aan ka ag fogeyn noocaasay ahayd. marka wax culays ah hadda markaas umaana arkayn. xaaladda way iska degan tahay. xaaladda laba nin oo darartayna laga dhex fiiriyo ama loo qabyaaladeeyo anagu ma garanayno. ciddii laakiin agteeda maaragtay ay miisaan ka leedahay haddana caytamaysaan rabnaa inaan wax yar u sheegno keliya ama xasuusin yar aan gelino. annagu ma caytamayno laakiin inaan u sheegno waddada saxda ah. ciddii dee markaas iyada cid maagan ama balaayo hurinayso waa la soo dhaweynaa. wax culaysa ma leh. dadkan waa is yaqaan. 30 sano bilaa dawlad ahaan soo marnay. baawur iyo nin walba qorigiisa afkiisa uu fuulayay. waa la is yaqaanaa reer gobolka Hiiraan. cid maanta laga gacnahayo oon ognahay annagu ma ogin. ciddii ceel qabto waan soo dhaweynaynaa, kor Allah idiin soo qaadan leenahay. labadaa mas-uul nin waa gaal jecel, nin waa xawaadle. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cumar Baadiyow iyo gudoomiyaha degmada hadda Beledweyne Cismaan Dhacisow Dhuubow waayo. keligii lagu bixiyey qarashka inta ogaanta la eg oo ummadda islaamka ay nagu caawiyeen iyo dawladdeeno lagu dhisay waraabaale ee ummadda fatahaadda ku laayay ee sanad walba barakaca ummadda ay maaragtay u sababi jiray ayaa wuxuu sameeyey gudoomiyaha hore sidaan maqlay anigu goobjoog maahi in keligii niman oo maaragtay ciiddii carabuurka lagu sameeyey ayay daabulayeen oo iska ragayaal u keensadeen oo dhowr iyo 10 baabuur ay u safan tahay oo cagafii joogaanoo waxyaaba noocaas ah gudoomiyaha degmada loo soo sheegay. sidaas uu meesha ku tagay. kadibna muruna dhex maray. Cumar sidee cadaalada xagee wadaad isfahmi waaba meesha ka dhacay. sidaa la aligeed gacan qaada yimid. waa la istaagtaagay, waa lagu kala tagay. xalay iyo shalay oo dhan gelinkii dambe ilaa maantadan iska daba wareeg qori aruuris boolo xoofto dhuubo baan soo qabanaynaa, geedahaan ka soo hoobanaynaa, intaan ka baxaynaa. waxaasa magaalada ka jiray ma garata. marka kolley isku dayo badan waa jiraan inay guuleystaanna waa rajaynaynaa. Cumar Baadiyow waa mas-uulkii gobolkan hore, dadkiisa ixtiraam ay u hayaan. waxa ayaga liddi ku aan inuu sameeyana uma aaminsanayn. haddii aysan dhacdayna waa shakhsi oo waxba ka xumaan karaan. wax kasta oo xumaadana xal in loo helo waa muhiim. marka wixii dhaxdaas looga kaluumaysana anigu ma garanayno.
عدان إسبوري سي وحانو ها نوه قري كوكان لوكا صوبحي بار حسديف لقى القلي لقى صوبحي بار حسديف عدة لقى علن كرو أما وحلوقة بدلي كرو بلوين والي سيقان بل هلا أركو وإنتاس وواحد كجرو مقالة دا يوحى عن ربينا نمد اللي وداقو حل الله لو رجينا هذا حل دي دنا والي سيقان وضاف ما يعني وانا اللي سيقانا هو صح ادي بانتي وادي كرتنا واجوبتا جواب وفرنتا هاي كومنتيغا oo soo ku soo qorto saasay waxiin waxa saaka qaldo way dheekartaa waa qodob waxaan rabaa dad mid yaro waxaan u maleynaa inuu meelahaas dibadda joogo oo bahalkii yaraayo dadka lagu qaaday dhax fadhiyo muxuu ahaa BL ka anaga u naqaana taksiila meelahaas ka soo dhowr marna waa arkaaso xawaala dhaxdiisa xataa balaayo ka sheega bajaa dhaaf Soomaaliga xataa aad ugu adag yahay horta anu ma garanayo cidaan reer adoogo ay nadii markii ay meelahaas tagaan dadka maskaxda u furunto wadamo aqoonti iyo dimuqraadiyadda ku hormari waayay xogaa meeshii isbedel inay ka sameeyaan la rabay ayaga inay ku qafiifaan anu ma garanayo dad badan oo noocaasna waa arkay wax badan oo tiriyay ninkaas aniga marka laakiin waxa iga anfacay saddexda qodob laba waa ugu jawaabaya midna waa nagu amaanay waa ugu mahad celinaya wuxuu yiri gaal jecel wuxuu keenaa caana iyo hilib waa ku mahadsan yahay waa nagu amaanay hadiis man dhahayni jicibow keenaa iyo baahi ah haysaba hadiisna lahayn waa ugu mahad celinaya horta bointigaas waa ku mahadsan yahay wuxuu sheegay nin habeen dhaweeta la dilay oo ciidamada booliska Hirshabeelle ay dileen oo asna meelahaas ka yimid waxoogaa yara qafiif waay la yiri sidan maqlay oo xero ciidan galay sidaana lagu dilay ayuu sheegay in ma aragtay magdhowgiisa isla saac la qaaday gaal jecelna laga qaaday walaal macaane ninkaas booliska dilay qabiil ma dilin gaal jecel waa qoomiyad islaam oo ummadda Soomaaliyeed kamid oo meel kasta joogto dal iyo dibadda degan ma garad ciidamada qarankana qabiil ma laho waxay leeyihiin darajo iyo kala dambeyn amni sharci u gaar ay leeyihiin annaga shaqo kuma lihin gaal jecel iyo xawaadle waxa la kala yiraahdo waa aniga iyo adigaas u dhaafimaynaba aan garana marka haddii aniga iga qaadi kartid nin ciidamada booliska ay dileen oo aan ku siinayo saacad iga qaadanaysid waa ku soo dhaweynaya iyadana waa ku maasan tahay hadday dhici kartana ummadana daawanaysa iyo intan dhageysanaysaan ma aragtay u deyn hadal wixii sax iyo qalad midkeena qaldan labadeena waxa soo haray maxaa la yiraahdaa wuxuu yiri dhagaxa ladin geynayaa doorashada arqaladay rabtiino wixii ma aragtay ka dambeeyo doorashada waa ladin ka xaynayaa ilaa ay doorashadan hadaa 10 ruux dishaano waxba anaga idin ka gali mayn anaga wax ma dilno ilaah baa wax dilo cidaan rabnana ma jirto doorashadana adiga waxba laga weydiin maayo doorashada gobolka Hiiraan ay ka dhacay way dhacaysaa ma garad adna cid ku dooranay male cidaad ma aragtay xilad raadiyo haysana male taksiila yar oo meesha iska joogata xagga siyaasadda ka hadashay iyo qowmi markay tahay xabba laga ma weydiinayo hadana waxa diidi kartidna male waxa dhiibi kartidna male way dhacay doorashada wayna dhacaysaa qaar adiga ayaa inta lagu dooranayo yeelan kuwaad hadda iska diiday ma walaakiin anagu ku aan leenahay ma hor istaagi kartid waxna kama bedeli kartid si sax ah loogu dooranayo meeshan kiibi Ilaahay u alfana waa ku soo baxaya soo nabad oo xamar aadaya waa qodob oo hadda maxaan ku raadaa waxba ka bedeli karin dad ku madkayso waa baalkii waa midda adeegsashada waa la soo adeegsaday cali guud laabay iyo waxa aad ku meeraysanay cali guud laabay waa madaxweynaha state-ka Hirshabeelle wixii uu ka biyay ama uu ka hadlay asaga u dabagal anaga hana weydiin anaga shacabkii reer Hiiraan anahay islaxadayna iyo dantayna iyo sharafkayna iyo masabkayna anaga ada waxba ka ma weydiinayna waxba uma dhimi kartid haddii aad marqaansan tahay oo dadka kaaga dhagan tahayna waa la iska ka celinaa tabartaada waad og tahay 2011 xaqiiq hadaad xasuus leedahay oo uma lahayn 2011 gadaal ugu laaba maskaxaada ka shaqeey qorihii laga furtay hadda lagu hor wataa ilaa lama galay joogan xanaaya ku faanaysid iyo waxa aniga dhagax ugu geynay ma garanayo dhagax ana degan alxamdulillah shukri ilaahay ku maasan waa dhulaan leeyahay hadduu dhagax ii yahay adigaba meel
guduudan oo cadduun oo qoraxa markuu soo baxo wixii dhulka yoogeen ay ku qabanayaan korna qoraxda ka dilaysaad joogtaa ilaahana ku barakeeyo ood ku qanacsan tahay anatayda waa ku qanacsanahay dhagaxayga ilaahay ugu beero waan deganahay maxaan ku raahdaa marka taa waa taasoo intaas ku dhaafi mayno walaal dhagaxaan riyana ku imaan maysid soo jeedna ku imaan maysid waxna kama bedeli kartid dadkii iska lahay iyo qooro rageedaa saaran marka waa kula talinayaa horena waa idinku sheegnay haddana waa idin sheegaynaa walaalo aan jecelnaha tihiin soo dhowaada isjacayl ixtiraam walaalnimo soomaalinimo islaamnimo intaba way nagu filan tahay aan ku wada joogna haddaad diidaan ada hadda waxaad bedeli kartaa ma aqaan meelahaas nin taxi kuwa too baahanaa tahay almeena sida xuudoo kale imow oo lafahaaga soo dhiibo wax isku samay meelahaas ha ka soo qaylin dadkan masaakiinta oo jababaca oo jicibtooda iyo waxooda meesha keensanaya ha ku rafanin dhibaatana ha gelinin in la laayana ha horseedina ka dhexbax haddii kale imow qooro iska dayo imow inaad timaado aad wax un bedesho xataa ninka aad nacabta ugu yaraan inaad xabad ku ridi karto isku day ma garad laakiin inaad maalin kasta aad social media dhex timaad macaac tiraahdo oo aad hadda ana hadda qiilba kumaba heli kara sababtoo nin xawaadla dhexdiisa wax ogaanta ka dhex sheegayaa tahay maalin kasta walaalow macaanow ummadda yaan la qarribin dhibaata yaan la gelinin qarrib yaan la horseedin nabad iyo deganaasha anfaco dadkan ma aragtay cid wax u sheegi kartaa ma jirto haddii halisu xoog sheegta ay tiraana tabar aday ku qabanaysaa dadkan dad isku filan waayo wayna kaa gaashaanteen soomaali maxamedayna la joogaano saaxiib la yihiin habar ijiya kaa taagan waqooyi aad qaajin la-do maalin kasta maxaas kugu haysa ma garat markaasay xaggee degan yihiin baq ba waxaasaad meelaha ku shirtaan ood maalinta isu sheegtaan ood habeenkii isu sheegtaan war naftaada hadday been kuu sheegtay lixaadkaada runta kuu sheego waa wixii kugu dhacay 2011 wixii ku qabsaday xawaalihii waxaa la yidhaahdaa oo reer hebelaa la yidhaha meeshaan dabaqa xaaji quurow dhinaciisay ku yeelaan garaashka hoostiisa lagu beega bakaaray ku jiraan etoobiyaankii soo dirteen xataa waa loo diiday waad ogtihiin maxaa qabsaday xaqdarra iyo dhibaata lama koombeeyo ummaddan yaan la isku dirin adeerow gacali cid meeshaan wax loo sheegi karaa ma jirto nin walba xaniyaheeday fuushaa iyo dadnimadeedu xadgudub ma fiicno maalin kasta aflagaada war laba ninoo mas-uuliyiin ah dirirtay maxaa kaa galay maxay tahay ilaa xalay xaal maanta dar waxaa bararaq loo leeyahay maxay tahay qoryaha la aruurinaya yaa lagu ridi karaa yaa wax looga bedeli karaa xasadhiif dadkaan shalay laga cilcilinayo la sheegaya maxay ka bedeli karaan xasadhiif maxay dad ugu bedeli karaan ma gamuuninayaan ma inkaartamayaan ma ammaantamayaan maxay ka bedeli karaan dhicisow dhuubow laba xaniyood habar dhashi waaye degmada joogaa mas-uul umadeed waaye maxaa laga bedeli karaa ma la inkaara kanow maa la dhahaa sharci wuxuu u leeyahay waa in maxaan ku rahdaa wax kastoo liddi ku ah ummaddanka horumarkeeda inuu hor istaaga xaqa u leeyahay waana loo doortay waana hor istaagaya dharbaaxta mehe inuu gusku jibinay waaba ahayd odiga ma garad yaa wax ka bedeli kara war ummadda yaan qoorta la isu gelinin ummadda yaan la qarribin dadkan masaakiinta oo birmageydada dhibaata la rabtaane waxbaa sooma kordhinaysaane ilma adeerayaalow ummadda deganaashaheeda iyo xasilinteeda ha laga shaqeeyo dadka meelaha bararaqda kale hoo doqonta ana ha layska qabto xawaalaan la hadlaynaa annaga adeerow gacali gaal jecel kuma rabo cid dhibaata kuhambaynaysa xawaalaana ma jirto haddaad maamul la dirirsan tahay iyo haddaad qabiil la diriraysa annaga kuma haysanee bannaankaas ilaahay naga maro systemkan 30 sano ku wada joogni oo kala dambaynta ixtiraamka laha aan ku dhaqanno haddaad diido waa isnaqaan ammaan ma aha cay ma aha ana adi marti kuumihi adna adi marti iimeed aqoonsigaaga iyo noloshaada iyo wadajirkaaga waan ogolahay haddaad kayga ogolayn adeerow ani ninku baryaameehi waa kaa da'weynahay dhaqaale iyo wiil iyo hub isu koy saarana ilaahay isiyo igu deeqaan haystaa faataxa kugulama joogo haddaad tabar u haysa habeen madooba tirtiri lahayd taas dah ma saaro waan ku kaftamaynaa adduunkuna waa ogyahay ma garata marka adeerow gacaliya dhibaatada ha la joojiyo gobolka xasilintiisa iyo wadajirkiisa ha laga shaqeeyo haddii la diidane December man how to sleep waa idin salaamaya Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu